السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دواده برنامج كاره oon caawa martii noogu yahay waa fanaanka qaaliga ee weyn fanaan ilka casaqays ilka case kusoo dhow baan kule walaal SRTV iyo barnaamijka aad baan ku salaamaya gaar ahaan adiga asiyo iyo agaasimaha TV-ga iyo dhammaan taageeraha shanta Soomaali meel walba ay joogaan aad iyo aad baan u salaamaya ilka casoo waxaan ku weydiin lahaa intaynaan horta inaan u guda gelin barnaamijkeena waxaan jeclaan lahaa bal heestaad ugu talagashay inaad ku furto waxaan jeclaan lahaa inaan ku furo heestii loo bixiyay heel qaran sax heestaas heel qaran erayadeeda yaa iskale erayada heesta waxa iskale abwaan dirgax yiraahdo mawlid dirgax baa la yiraahdaa laxankeeda yaa saaray laxankeeda waxaa saaray xasan kaafi iyo حسن كافي نوعها أبوان حسن كافي يدرج أحمد كو ما عزوزت لكن هسه جعل الله هنا كفره مرني أديك هردوق لي هرقبونا جيو قوشنا هرسيدو شعب كميدية هراي الصعو هالليعن هاللمدين مدحوين مصطفى نهقان شعبك كوهلا نهقان دوني دا أقارن نهقان هاليي دلقو نهقان هالكل يبوان باري يجي بوكي هو يهوداني يجي مهوران دلكن يجي ويجي نبدا يجي قوالكي هاليي يدا يجي حسبي برواقة يجي عريرها جيجي جيجا يجي صومالي بستيل يجي waa tahay daawadayaal hadaynu intaas kaga soo noqono heestii xisbiga barwaaqay heestii deegaanka ilka casoo waxaan ku weydiin lahaa su'aal heesahaagu inta badan hanjabaad iyo raab bay u badan yihiin maxay tahay sababtu markaa علشان heesaha raabka heesa raabad qaada hees kale ma qaadid marka heesahaaga raabka waxa ku jirta hanjabaada ku jira adiga marka sababtu maxay tahay well heesaha raabka gaar ahaan luqadaha ajnabiga
waxaa ugu horreeyo bilaabay dee maraykanka soo maaha heesaha maraykanka haddaad dhegeysato 80% waa hanjabaad iyo dagaal raabka wax yar baa jecel ka wax yar baana wadani ka marka raab gaar ahaan heesaha raabka una fiirso heesaha jacaylka raabka aan qaadno dadku waxay ka daawasho badan yihiin heesaha holofolofka la iska dhigay marka heesaha raabka waxay ku soo baxayaan hanjabaad dagaalka in la iswaabiyo ayay badanaa ku soo baxaan waxaa jirta hees kaloo iyaduna caananuug la dhaho oo iyaduna karbaash ah heestaas caananuug maxay tahay علشان maxay ku timid heesta caananuug waxaa qoray abwaan xasan kaafi by the way horta abwaan xasan kaafi aad iyo aad baan u salaamaya halkan baan ka salaamaya xasan kaafi legendary heesahayga ugu badan raabka asagaa qoray heesa badan oo qoraa jiro sida heesta skipo heesa badan buu qoray sida nuuraani marka aad iyo aad baan u salaamayaa heesta caananuug abwaan xasan kaafi ayaa qoray iyadoo la xameysano ayuu ii dhiibay kulley waxaan u malaynaa maalmaha ka mid baan soo qabanaynaa weydiinaynaa xasan kaafi oo heesta caananuug iyo ku socotay haddii rabta hataa anina igu socota laga yaaba mogta sax marka waan wareysanaynaa ilka casow jigjigaa timiday waa markii kuugu horreysay jigjiga timid marka bal waxyaalaha kula yaabka badan waxyaalahaad kala kulantay maadaama markii kuugu horreysay dawlad deegaanka aad timid uu yahay maxaa jigjiga soo maha okay horta aniga waa markii ugu horreysay imaad waa saxsantahay aasiyeen adeer markaan qurbaha markaan joogay baraha bulshada waxyaalihii la soo dhigi jiray propaganda ahaa in aysan dadka waxay lahaayeen saanaa jirto waxaan jirin ba meesha ay dadku baraha bulshada dhigi jireen laakiin markaa aan imaaday oo aan dalka imaaday gaar ahaan magaala madaxda jigjiga ayaa waxaa dhacay horta aad iyo aad baan u yaabay shacab isjecel walaale qabiil aan ka hadlaynin qof qabiilku weydiinaya ma laha nabadda taalo 8 saac habeenimo kaliya iska lugeeya waardiye ma wato wax ilaalinay ma wato baarigaan ma wato ani iyo walaalkay iga weyn iyo xikimna nalama joogo horta walaalkay iga weyn xikim nalama joogo oo waliba managerkayga waana walaalkay iga weyn xikim aad baan u salaamayaa ogaaska insha Allah bismillaah kariim mar baan asagana keenayna mar baan soo afduubeynaa marka nabadda dalka taalo iyo shacabka isjecel madaxda iyo maartay sida ay shacabkooda uga warhayaan waxay calaashan nabadda iyo horumarka madaxweynaheena Mustafa Maxamed Umar uu nagaarsiiyay aad iyo wixii propagandihii Facebook lagu hayay aad iyo aad baan aniga horta ola yaabay calaashan waxa dadka qaar ku kalifay marka arrintaas ay ugu yaabadnaa calaashan sida dadka dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada dawladoodu jecel yihiin iyo madaxdooda waa tahay ilka casow badanaa daawadayaashaadu iyo dadka ku yaqaana waxay ku yaqaanaan ilka casaqays marka magacaan magaca ahayn muu jiraa dadku waxay u yaqaanaan ilka casaqays laakiin aniga magacaygu waa maxamed qays cabdiqaadir duwowire waxaana ka soo jeedaa family reehire la yiraahdo marka oo aad iyo aad loo yaqaano marka magaca ilka caso waa naanees waana dhanka aabo duqaabaha abwaan buu ahaa ilaahay ii daayay marka magaca ilka caso halkaas iga soo raacay naaneesiisa laakiin ani magacayga waa maxamed qays cabdiqaadir labada magac maxamed ilka caso baa tiri marka sidee lagugu kala bixiyay labada magac marka qayska iyo maxamedka maxamed duqaaba ay bixiyay sax qaysna hooya ay bixisay okay marka labada magac saas ku yimaada waa tahay hadda waxaynu soo gaarnay qaybihii dhexe barnaamijka hees waxaa jirta dhaanta ah oo hadda cusub bal heestaasaan ku dhihi lahaa bal dhaantada aan midowno bal yaa sameeyey dhaantada aan midowno waxaa suubiyey abwaanka shanta Soomaali abwaan maxamed hargeele oo walaalka
waliba mar walba aan garab taagan waana ninkii maalinka imaad ilaa hadii garab taagan walaalkay waana abwaan kulligeen aad taqaanaan waliba waxaan jeclaan lahaa abwaan maxamed hargeel inaan u waaco oo asaga uu noo sharaxo hadii ilaahay ka raan noqdo dhaantadaas maadaama uu asaga qoray oo marna waa fanaan marna waa abwaan marka maxamed hargeel waxaan leenahay ku soo dhawow الله يعزك سو دوبا مينا وان هرجيله sidoo walaalkay boqorka shanta Soomaaliyeed ilka casaqays oo maaragtay igu soo dhaweeyay inaan dhaantadaas aan midoona aan runtii aan ka sheekeeyo runtii dhaantada qaabka ay u dhacaysan marka dadku ay dhageystaan jacayl ay u muuqataa balse qofka runtii suugaan yaqaanka markuu sii dhuuxo aan midowno macnaheedu waxay ka dhigan tahay war aan madaan nahay Soomaalida deegaanka Soomaalida ama hadaanu nahay macnaha dadka shanta Soomaaliyeed aan midowno on gacmaha isqabsano on macnaha isku tanaasul on maxay ahayd aanan waxyaabaha xurguftii manaamiki iyo waxyaabaha ku dhex jiro intaan iska saaro aanu dad walaalo aan noqon on gacmaha isqabsano muhiimadeedu aan midowno weeyo jacaylkana deeyo runtii waa lagu dhax hubiyay aan midowno weeyo cashan muhiimadeedu aad iyo aad ka hadlaysaa عصب بالتاريخ هذا كوبان تاريخ نولد كاغا halkaad wax ku soo baratay halkaad ku soo barbaartay bal wax naga yar nooga yar sheeg
horta aniga waxaan ku dhashay magaalada Dobley ee gobolka Jubbaland laakiin fanka waxaan mar walba fanka waan iska jeclaa laakiin waxaan aad u jeclaa raabka marka adiga Nairobi yaan marka Nairobi baan u soo guurnay Nairobi markaan anagoo joognaa ayaa waxaan soo binnay group baan soo binnay anagoo badan aan magacyadooda hadda inta ka sheegaynin oo maartay oo raabare iyo heese groupka markaan soo binnayba groupkii baan ku jiray laakiin dee iska dhalinyaro oo waxaan ahayn is aruursatay maartay meelaha oo maartay Shaleema ayaan iyo Togdheeri maartay Shaleema Togdheeri markii maartay aan tagno maartay inta isku imaana banaanka ayaan iska camiran jirnay waliba gaar ahaan waxaan soo bin jirnay freestyle wax la yiraahdo marka funky markii si adi funky waagi baan soo galay laakiin oo si aan maartay oo aan niyadeyda soo gashay in aan group intaan soo bin aan soo baxno laakiin ilaahay amarkii annagii oo qaban qaabadii groupka wadno ayaan aniga waxa Mareykanka xaqad ku soo barbaarteed ku soo baratay waxbarashadaadii hore waxbarashada wal Dobleyna waan ku soo bartay Nairobi ugu dambeyntii Mareykanka gaar ahaan gobolka la yiraahdo waxaan ku soo bartay gobolka la yiraahdo Connecticut oo New York u dhow iskuulka labaad ugu waxa waa second oldest school Mareykanka waxa la yiraahdaa Hartford Public High School iskuulkaas aniga high schoolkaas ka qalin jabiyay markaan qalin jabiyay ba waxaan aaday 2 sano community college waxa la yiraahdo 2 sano waan dhameystay community college-ka waxaanan bartay engineer computer laakiin ilaahay amarkii dee shaqadii aniga iyo wixii maartay meeshii la rabay inaan hor u sii socdo dee funky waa xoogaa waqti yar galiyay iskuulka 2 sano soo dhigtay 2 sano baa ay hadhaato waxaan ku weydiin lahaa ilkaas oo waxaad joogtaa magaaladii Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaalida ma laga yaabaa Jigjiga inaad aroos ku dhigato aroos labaad ama aad ku guursato oo degtaba inaan ma aqaan inaan horeyna ku sheego horta inta Jigjiga waan u soo guuray maadaama aan aad iyo aad uga helay nabadda dalka horumarka dhalinyarada isjecel wax walba markaan aad iyo aad aan uga helay waxaan go'aan ku gaar horta inaan intuu soo guuro waan ogahay ninka ragga ilaahay baa u baneeyay 4 laakiin aniga hadda inaan noolaadaan rabaa ifaan markaan rabo inaan dhinto ayaan mid labaad raadinayaa waa tahay kuma qorshaysna markaa inaad imika guursato maya Naciima Diamond iga badan waa tahay aad iyo aad baan u salaamayaa Naciima Diamond aad baan u salaaminaa dumaashadii halkaas Naciima Joker aan salaaminaa dhammaantiinkaasoo waxaan ku leenahay we love you waxaa jirta tiimkaasoo hal hays baad u leedahay tiimkaasoo muxuu yahay markaa tiimkaasoo magacaas waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku tagtay oo qabiil walba ku jiro marka horena la dhihi jiray 11 brothers marka dambana tiimkaasoo loo bixiyay magaalada madaxda ay tiimkaasoo ka dhisan yihiin waxa weeye Nairobi inkastoo adduunka 43 ay joogaan gudoomiyaha aad iyo aad baan u salaamayaa Sharaf Cabdi ee tiimkaasoo madaxweynaha tiimkaasoo Maxamed Cabdullaahi Yurub qooya aad iyo aad baan u salaamayaa ugaaska tiimkaasoo aad iyo aad baan u salaamayaa Cabdi Manaan waxaan kaloo halkan ka salaamayaa ina dalmar baan salaamayaa Mustafa Dalmar ayaan la dhagacade tiimkaasoo waa badin aad iyo aad farxaan aad baan u salaamayaa farxaan Cabdi Aar aad iyo aad baan u salaamayaa tiimkaasoo way badin laakiin lama soo koobi karo صح حسن كافي حتى كمد بويا ادي اد ما سلام يا حسن كافي بوفي عيانك بوفي عيانك دمان واتيم كازوي صح باشو ان سلام يا تيم كازوي بدن يهين او سيد كلمه سلام يلالي ما dhamaanayaan waa intaas oo baliyan salaamuhu way inoo dambeynayaan heesteen ugu dambaysa waxa weeyaan nuuraani nuuraani baan ahay leelkii baan doolaa
bal heestaasi erayadeeda iyo laxankeeda codkan yara doonayay bal intaynan heesta u gudagelin heesta iyada waxa iska lahaa waxa qoray abwaan xasan kaafi haddana waan ku sheegan oo malay heesayga badana waxa qoray xasan kaafi abwaan xasan kaafi wuxuu joogaa Nairobi mar labaad ma salaameena dhamaan anagoo idil intii jooga gaar ahaan teamka Zow wallahi heesta iyada waa qiso dheer haddii aan bilawnana ma dhamaanayso laakiin waxaan iska jeclaan lahaa inaan arintaa la gelin because heesta iyada xasan kaafi qisadu ku qoraan ogahay lama hadabiga joogta baqiya dabaylaha nuuri markay dhaqaaqa laydala deeri gadigooda ogadha harsani hurdo la-aan ma joog aanu lixadeeba uu isi kuwa naceebka la haraaqaya dadka uma dhigo liiskooda ma furo dudumada biyaha dusha ka saara lama dhaasado lamana dhadhamiyo dibintaydana loo yar uma baano laaclaac iyo lagdinuuma baano nin naftiisa muray faataana ma baano muranirana hayaykiban duura laas qoraygaan anolahi dulmara meheloob iyo liboyan ku soo daga mangaabku hurdama ladamaya ama lura oo iilura lamaha ama durwaaga iilooga libaxu ma baqo liikama baqo ila lixda sano jeesjees madaala ama lura oo iilura lamaha ama durwaaga iilooga libaxu ma baqo liikama baqo ila lixda sano jeesjees madaala laasimaha dhibka ina sharaxo kuwa liitee naftooda garo ina la tursado la jihaado maco haddaad yurubdhi ilaabnaa madaaya ilan dawacadu lurbaa madaaya ilan dawacadu la jeex madaaya martaq baa la beegsan dhulkaan ku daraa ciidaan la simaa nashiraan gubi lamigaa soo dhigi cilka magafaha liibiya anu qabo ayaan ku furay looga ilan soo joog diiday cawan la kordhabay la masdara weeye ilan qaban karo mihiya miiso ha isdhigin haranaa foogin ila lixdan garo jeesjees madaaya ama lora oo iilura laamaha ama durwaaga iilooga libaxu ma baqo liikama baqo ila lixdan sano jeesjees madaaya ama lora oo iilura laamaha ama durwaaga iilooga libaxu ma baqo liikama baqo ila lixdan sano jeesjees madaaya adoo ka faa'iideysanaya ilka casoo bal halkan yaad salaan uga jeedin lahayd waxaan halkan ka salaamayaa number 1 hooyada macaan oo ku sugan hadda dalka Mareykanka waxaan leeyahay hooyo macaan I love you so much heestii hooyadeena insha Allah mar dhawaan soo daanaynaa I love you so much hooyo number 1 hooyaan salaamay number 2 waxaan salaamayaa aabbahay macaan aabba Cabdiqaadir Dhuuhire I love you Abba. waxaan halkan ka salaamayaa teamka Zow dhammaan meel walba joogaan adduunka afartiisa dacal hebel iyo hebel ma soo koobi karo dhammaantood waan salaamayaa dhammaan teamka Zow waxaan halkan ka salaamayaa kala madaxweynaha shanta Soomaali baan leeyahay madaxweynaha shanta Soomaali baan u aqaanaa madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku salaamay madaxweyne horumarkan meesha hadda aan fadhiyo lagu wareysay wad u jeedaan aniga markii ugu horeysan soo galay waxaan u maleeynaa MTV iyo BET iyo maartay NBC iyo meelahaas maartay oo Mareykanka iyo dadweynaha iyo BBC da maxaa yeelay waa markii ugu horeysay meelo badan baa tahay adduunka Bariis dacal laakiin markii ugu horeysay aan arkay Africa meel sidan caalamiga madaxweynaha waxaa leeyahay markaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay iyo dhammaan asxaabta TV-ga oo ugu horeeyo agaasimaha TV-ga aad iyo aad baan u salaamayaa agaasimaha thank you aan leeyahay waxaan si gooni ah u salaamayaa Guuled Casoowe my big brother Guuled Casoowe walaashay Aasiya ayadana waxaan leeyahay kulay deegaanka number 1 baa ka tahay waliba markii aan hadda Mareykanka joogo aad baan ku taageeri jiray marka soo gashay Aasiya noolaato aan dhihi jiray
marka aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan halkan ka salaamayaa xaaskayga laftigaal Naciima Diamond iyo waxaan kaloo halkan ka salaamayaa caruurtayda iyo hooyadood Naciima Cabdi Gurey ayadana ilaahay markii waa isku magac respect sadana magac caruurtayda I love you all saajid ugu horeeyay saahim ku xigo saari ma weeyar yahay iyo Naciima Cabdi Gurey oo ma xaaskayga hore marna walaashay oo marna my best friend I love you all inshallah bismillah kareem hadii aan nabadnahay inshallah by the way caruurta jigjigan ayagana soo dejinaya wana ka wada hadalnay gurigoodina waa diyaar inshallah aad iyo aad baa idin salaamay dhamaan waxa abwaanka thank you aan leeyahay abwaan Hargeele walaalkay abwaan Hargeele laftigaal baddo walaal jiraataan ku leeyahay maalinkii ilaa iyo hadda waad garab taagan tahay isa badan oo ii qortayna qaar way soo baxeen oo kale shacabku arkeen thank you aan ku leeyahay walaalkay iga yar asagana habeenii maalin asna ila taagnaa aad iyo aad baan u salaamayaa legend baan u aqaanaa Saadam wana ogaaska reerka dhamaan siidka waan salaamayaa shucayb teamkaas oo dhamaantood waan salaamayaa waxaan kaloo halkan ka salaamayaa oo si special ah waliba u salaamayaa walaalkay iga yar boqorka codka legendary Xariir Ahmed ilaahay ka sokow hadii uu san joogi lahayn halkan waxaan u maleynaa ma wajaclaadeen baa u maleeyaa wadanka maxay walaalkay Xariir laftigaal badho waa gob waa amin nolosheeda ma arkin qof walaalkay oo maanta Xariir aan la sima ma jiro marka Xariir iyo xaaskiisa waxaan leenahay xayaat we love you thank you so much by the way guud ahaanba daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaa waxa inooga idil barnaamijkeena gaarka ahaa oo martii noogu ahaa fanaanka weyn ee la holin waayay fanaan Ilka Casaqays annaga iyo bahda SRTV oo isku duuban waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo amaana Allah